Assalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiiseysa Konami ama eFootball meel walba adduun weynaha ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad iga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer qofka idinla hadlaayana waa saaxiibkiin waa walaalkiin Yaki Boy kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha maalinka isniinta ah la keeni doono iyo warbixino kale oo xasaasi oo ka imaaday dhanka iyo eFootballka ayaan kula wadaagi doonaa intaan muuqaalkan gudaha usii gelin musow maanta waxaan ku wadaa fursad kale oo aad ugu guuleysan kartid 500 fursadda waxay tahay YouTube-kan wuxuu sii marayaa intaan oo subscriber inta khamiista la gaarin haddii aynu gaarno 6,000 oo subscriber waxaan bixin doonaa 500 oo koonis 500 oo koonis waxaad ugu guuleysan kartaa inaad YouTube channelkan aad subscribe dhahdo muuqaalkan aad hadda daawanaysidna inaad like sarto kadib muuqaalka aad share garayso commenti ayaad soo qoraysaa commentigu doon ha ahaado aniga ayaa xulan doona guuleystaha maqadeedow ku guuleyso 500 oo koonis ha u guuleysan kartaa YouTube channelkan oo hadda naga daawanaysid ayaad subscribe soo dhehaysaa muuqaalkan hadda daawanaysidna like ayaad saaraysaa kadib commenti ayaad soo qoraysaa khamiista inta la gaarin haddii aynu gaarno 6,000 oo subscriber wallaahi waxaan bixin doonaa 500 oo koonis laba qof oo idin ka mid ah ayaan min 500 siin doonaa laba qof oo idin ka mid ah ayaan min 500 oo koonis siin doonaa inta khamiista la gaarin haddii aanu gaarno 6,000 oo subscriber 5 maalina ka harsan waa gaari karnaa nagu soo bir haddii aad nagu cusub tahay waayahay muuqaalkeeni ayaa gudaha usii gelaynaa waxyaabaha maalinka isniinta ah la keeni doono waxaa ugu waaweyn European Clubs Tigreskan ama Bladerskan Ibigiskan ayaa markaasi la keeni doonaa maalinka isniinta ah Ibigiskan waxaa waaye Michael Owen iyo Batistuta iyo Costa raggan ayaa la keeni doonaa faahfaahintooda iyo raggan ratingkooda iyo waxaas dhan muuqaal kale ayaan ka soo samayn doonaa waayahay warbixinada kale waxaa waaye waxaa imaan doono bishaan aan hadda ku jirno update vershankiisu yahay 4.3.0 updatekaas ayaa imaan doono updatekaas marka warqadan waxay sheegaysaa in uu imaan doono bisha aan hadda ku jirno inuu imaan doono marka updatekaas ayaa imaan doono February 2025 ayuu imaan doonaa updatekaas applicationka waxyaabo badan ayaa laga bedeli doonaa xagga design-ka ama loogada wax walba waa la bedeli doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa campaign-kan ayaa la keeni doonaa waxyaabo aad u fara badanna markaasi aad ka faa'iidaysid campaign-ka wuxuu ku imaan karaa sidan ayuu ku imaan karaa ilaa iyo 250 koonis adoo markaasi ka faa'iidayo oo Neymar GR-na markaasi free aad ku qaadanaysid waxyaabo kale oo dheeriyaan aad ka faa'iidaysid ama sidan ayuu ku imaan doonaa oo dhowr free lagu siiyo oo Brazilian ah ama Brazil national ama ciyaaryahanada Brazil aad ku turanaysid iyo 350 koonis iyo waxyaabo kale oo dheeri aad markaas ku guuleysanaysid sidoo kale waxaa la keeni doonaa nominating contract ama playerskii nominatingka lagu iibsanayo ayaa la keeni doonaa oo u horeeya ninka la yiraahdo Edric iyo Lamine Yamal Golden Boys ayaa la yiraahdaa ama waxaa kale oo la keeni doonaa Club Icons raggan ayaa la keeni doonaa oo u horeeya James Ferdi raggan ayaa ayagana la leeyahay waa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa European Club Championship oo nominating contract ah sidoo kale waxaa la keeni doonaa Golden Boys oo markale Arda Güler u horeeyo ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa players transfer ama playerskii kooxdooda ka tagay ama kooxdooda laga iibsaday koox kale oo markaasi ku biiray ayagana waa la keeni doonaa playerskaas in la soo aruuriyo hal meel isku keeno ayaa nominating contract lagu soo dhigi doonaa haddii midkaad doonta ka iibsanaysid sidoo kale new captains ayaa la keeni doonaa oo markaasi nominating contract ah ciyaaryahannadan oo halkaa ugu jeedaan tabankaas ciyaaryahan ayaa markaasi la filayaa in markaasi la keeno sidoo kale nominating contract oo new chapter ah ayaa la keeni doonaa oo markaasi u horeeyay Szoboszlai ayaa la keeni doonaa ayagoo markaasi nominating contract ah ama waxaa kaloo la keeni doonaa Japan League oo markaasi u horeeya nominating contractiga ah ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa Super League oo nominating contract ah ayaa asigna la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa Brazilian League oo markaasi nominating contract ah oo u horeeya Wesley ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la keeni doonaa Portugal oo markaasi nominating contract ah ayaa asigana la keeni doonaa sidoo kale intaas marka ka soo gudubno updatekaas marka uu imaado waxaa la keeni doonaa managers kale cusub oo xasaasi ah oo u horeeya ninka la yiraahdo Carlo Ancelotti ayaa la keeni doonaa oo markaasi aad ku furinaysid 500 oo koonis
sidoo kale Emery ayaa la keeni doonaa isagoo markaasi manager Boster ah ayaa la keeni doonaa oo markaasi aad ku fulinaysid 500 oo koonis. Sidoo kale Jose Mourinho ayaa asigana la keeni doonaa isagoo Boster ah oo aad markaasi u iibsanaysid 500 oo koonis. Intaas markaa kasoo gudubno oo managerska ah markii campaign-kan la keeno ciyaaryahanadii oo bondiska qaybta bondiska waxaa lagu soo kordhin doonaa Griezmann ayaa asigana lagu soo kordhin doonaa qaybta bondiska oo ku iibsanaysid 5,000 oo points. Qaybta bondiska waxaa kaloo lagu soo kordhin doonaa ciyaaryahanan oo halka ugu jeedaan oo hore Alexander Isak ayaa ayagana lagu soo kordhin doonaa. Sidoo kale waxaa lagu soo kordhin doonaa playerskan oo hadda halka ugu jeedaan ayaa ayagana qaybta bondiska lagu soo kordhin doonaa ama playerskan kale oo ugu horeeyay Toni Kroos ayaa ayagana markaasi lagu soo kordhin doonaa qaybta bondiska. Sidoo kale waxaa lagu soo kordhin doonaa qaybta bondiska playerskan kale oo halka ugu jeedaan oo markaasi ugu horeeyay Tonali ayaa ayagana lagu soo kordhin doonaa qaybta bondiska. Intaas ayaan jeclaystay inaan markaasi idinla wadaago. Please haddii aad nagu soo birin channelku waa channelkaaga nagu soo bir aad iyo aad waa u mahadsantahay.